Guddida abaaraha gobolada bariga Somaliland oo waday gurmashada dalka jilicsan ee ay saameysay abaartu ayaa maanta koox isugu jirta dhakhaatiir, kalkaaliyaal caafimaad iyo shaybaadhistayaal hawlgalla caafimaad ka fulinaya degmooyinka Qoryaale iyo Warcibraan u dirtay degmooyinkaasi, sidoo kalena gaarsiisay booyado biyo ah oo lagu gurmanayo dadka haraadan ee ku sugan degmooyinkaasi. Kooxdan waday hawlgallada caafimaad oo ka koobnaa dhakhaatiirta ugu tayada wanaagsan gobolka Togdheer ayaa si bilaash ah ugu shaqeynayay hooyada iyo dhallaanka iyo waliba dadka waaweyn ee ku sugan magaalooyinkaasi iyo tuulooyinka hoostaga. Agaasimaha cisbitaalka Khalifa ee magaalada Burco, Dr. Cabdillaahi Cali Muuse ayaa ka warbixiyay hawlgalladan caafimaad ee ay u qabanayaan dadka jilicsan, una mahad celiyay guddida abaaraha ee gobolada bari iyo salaadiinta bariga Burco iyaguna ka dambeeyay siday hawshan u fuli lahayd. waxaanu maanta ku sugannahay xanaanada Qoryaale safar shaqo oo ka kooban dhakhaatiir, kalkaaliyaal caafimaad iyo shaybaadhistayaal. Safarkan oo ujeedadiisu ay tahay marka koobaad u kuurgalka xaaladda caafimaad ee xilligan abaaraha ay ku sugan yihiin deegaamadan hoos yimaada degmada Qoryaale iyo degmada Warcibraan, maadaama xilli adag lagu jiro oo dadku aanay soo haleelayn inay yimaadaan goobihii caafimaad ee magaalooyinka ku yaalay. Waxa tiimkani istusay in loo baahan yahay in goobahooda dadka loogu tago oo wixii dawo la gaarsiin karo ama wixii u baahan adeeg caafimaad la soo eego oo meelahooda loogu tago. Ta saddexaad waxa weeye in la gaarsiiyo biyo intii la gaarsiin karo. Runtii markaa ma noqonayso markii koobaad ama deegaankii ugu dambeeyay ee aanu tagno, laakiin waxay noqon doontaa meel aan ka bilowno isla markaana aan ku qiimayno bal xaaladda caafimaad ee jirta iyo baaxadda ay abaartu leedahay. waanaan joogtayn doonaa insha Allah safaradan aan ku imanayno deegaamadan iyo deegaamo kaleba. Waxa safarkan qayb weyn ka qaatay iyaguna guddida abaaraha ee gobolada bari oo runtii si mug leh uga qayb qaatay abaabulkeeda iyo ka qayb qaadashadeedaba. Dhinaca kale, guddoomiyaasha degmooyinka Qoryaale iyo Warcibraan, xogaha degmada Warcibraan iyo waliba dalka jilicsan ee ka faa'iideystay hawlgalladan caafimaad ayaa u mahad celiyay dhakhaatiirtan sida bilaashka u daweynaysay xilliga adag ee ay jirto abaartu. maanta waa maalintii dadka loo shaqeyn lahaa inay tahay inaad garateen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa, idinku hambalyeynaa. waana bulshadeennii maalina in loo shaqeeyo, maalina in laga shaqeysto way tahay. dhakhtarada hadii ay badanka waxa loo yaqaan in kaadhun lagu galo, maanta iyagoo bilaasha oo kaadh lagu galin hadii ay guryaheennii iyo magaalooyinkii iyo miyiga u soo baxeen oo iyagu kaalmo caafimaad oo bilaasha bixinayaan, in dadku ay ka wada faa'iideystaan. ilaahayna khayrkeeda haydan siiyo. guddida abaaraha iyo bahdina caafimaadka iyo cid kastoo ka qayb qaadatay barnaamijkan fududeysana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. halkan waxaanu uga mahadnaqaynaa ilaahay marka goobaad. mar labaadka waxaanu u mahadnaqaynaa salaadiinta beelaha bariga ee soo qabanqaabisay dhakhaatiirtan khubarada ah ee ka soo qayb qaatay abaaraha iyo xanuunada jirjira dhulka inay u yimaadaan si mutadawacnimo ah ugu shaqeeyaan dadkooda. aad iyo aad bay ugu mahadsantihiin ciidanka caafimaadka ee uu hogaaminayo Dr. Muuse Baaxir. aad baan ugu mahadnaqaynaa. waad arkaysaa dadka faraha badan ee meesha jooga waxa laga yaabaa rubuc inaanay ka noqonin inta maanta halkaa ka hesha, laakiin intii kaleba waqtigu ka dhaco. waxaanu codsanaynaa in si degdeg ah loogu soo noqnoqdo insha Allah. halkaanu joognaa waa degmada Warcibraan, gaar ahaan MCH-kii degmada Warcibraan. waxa aanu u taaganahay caafimaadka ay soo diyaariyeen salaadiinta beelaha bariga. waana u mahad celinaynaa dhammaantoodba cid kastoo ka qayb qaadatay oo tiimkan iminka noo soo dirtay uu hogaaminayo Muuse Baaxir. waxaan leenahay xilligii ay ku beegnayd ee loo baahnaa ayaa ku soo beegteen. sida kagar la'aanta ee ummaddiina ugu shaqaynaysaana haddii aad tiimkan tihiin iyo haddii aad salaadiinta soo dirtay aad tihiinba wadi ka mahad celinaynaa. sida abaaruhu ay dalka uga jiraan ayaa baahida caafimaadkuna ay uga jiraan. waxaan nala jooga dhakhaatiir gobolka nooga timi, shaybaadhiyo wacan iyo dawooyin iyo noo sida maxaan idhahdaayay. waanu ku mahadnaqaynaa. Cabdirashiid Timir, Home Cable TV, Burco.